وحير النبي عليه الصلاة والسلام إلهي بمنا بريا إن الله عز وجل الله حليم وألد القاد بدن إبرأ وفي يوم من كأه حيي وأله حشود بدن ستير وأله أستر بدن وأدومه سأستره يحب إلهي واجعله الحياء حشودك والستر أسترك إلهي واجعله معنى ذو حوية دبا إن حشوته ذاتك عيبتي سنوات كهرباء النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحابتي سدد كميدا wax ku qoonsado minbarka markuu soo istaago sida wax u jiraan iyo sa wax u dhaceen iyo waxa dhibta ee jiru ka hadli jiray cidna ma magacaabi jirin dadka waxa sameeynaya maxay u jeedaan maxay waxa u sameeynaya laakiin hebel iyo heblaayo ma oran jiray nabiga kaleey salaatu wasalaam Abdullah ibn Umar baan u yimi maalin sida xadiiska Bukhari ku sugan markaas uu Abdullah wada saxaabada nabiga kamida kaleey salaatu wasalaam shaqi ugu dhawaa su'aal baan ku weydiinaya rasuulka ma maqashay bal sida aad u maqashay ii sheeg isagoo ka waramaya kulanka adoonkiisa mu'minka ah aakhiro banaanka marka la isugu yimaado xabaasha dadka laga soo qufo ee banaanka la soo taago ee nafta lagu soo celiyo ee ilaahay xisaabinayo qaabka qofka mu'minka ah ilaahay ula faqo mu'minku ilaahay gaarbu ula faqaabaan maqlaye عبد الله بالوحي يقشك قارها رسولك أهرنك إنات كم قشي بل يقشك عبد الله وحي يري رسولك وان كم قال يسوى أهرنك كهضلي والنبي وحي صلى الله عليه وسلم قال جل وعلا قال يا منافقين يا ظالمين مخلوق هرتوذ كعبية وحي أي قالين خلدها أيام مدمر له حسابية مركاسا إلهي انتون نعضله نار تأدريرية وملائكته كأديتشيا لكن قفك مؤمنك سيجار إلهي ورفقا وسود ويستا وأسطرا أدومها بنانك تاغن أركي مايان إلهي يساق وحي قوة هذا اللايان مقلي مايان هوس بألا ورفقيا أدون كيجيو وحا مصا ميسي أدونك مركات شوكت ها إله واسمي كائيا كان مصا ميسي واسمي كائيا كان مسميس واسمي مركو قرته او سيراده والله واكو ادغتي ارنتو الهي اسغا عدنا وما دحايسو لبدودا ودا هدليا با الهي وحو كورنيا ادونكيغيو مؤمنك اها ادونك marka joogta ceebtaada ana asturay waxa aan iminka ku weydiinaya ka dhacayaad samaysay adduunka cidi mana maqal mana arag lagugumana eeday ana ku qarinay inta ku asturay waxa aad ka kacaya adduunka anaa ku asturay aakhirana maanta aniga ku asturay wali waa ku dambi dhaafayo waana ku saamaxay markaas orod la oranaya dabeeta kitaabkii baa midigta looga dhiibaya markaasuu farxad oranaya wakaa kitaabkayga midigta la iga siiyay arkaay oo daawadaygu oranaya wixii ka dambeeya waa guul iyo janno inuu tago